Assalaamu calaykum nabad saaxiibada qiimiga badanow meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada casharadii tixaanaha ahaa ee aynu ku baranaynay luuqadda Ingiriiska. Waana qayb kale oo ka mid ah qaybihii aynu ugu talagalnay erayada Ingiriiska in aynu ku barano. Aggravate uga darid ama sii xumayn. Dhib jiray awal in looga daro ama la sii xumeeyo, ama xanuun ama dhib. Agony dhibaato. Agree ku raacid. Agreement heshiis. Aid gargaar ama caawimaad. Gargaarid ama caawimaad. Labadan midna waa magac, midna waa ficil. Kan hore waa gargaarid, waa gargaar ama caawimaad oo ah magac. Tusaalaha aynu ku arki doonaa inoo soo socda insha Allah. Aim shiishid ama liifid, in wax la liif saaro ama la shiisho. Aim ujeedo ama qasad ama ujeedo. Airline shirkad diyaaradeed. Airport garoon diyaaradeed. Ajar balaqnaan sida albaab. Alarm gambaleel. Erayadii aynu hadda soo aragnay oo ku jira jumlado si aad si fiican u fahamto oo ay kaaga dhadhacaan. Don't scratch, ha xogin. You will only aggravate, waad uga dari doontaa oo kaliya the itch cuncunka. Don't scratch, you will only aggravate the itch. Itch waa cuncun, meel qofka mugtoo kale ama xanuunaysa oo cuncunaysa. The wounded man was in agony. The wounded man, ninka dhaawaca, was in agony, waxa uu ku jiray xaalad dhib ah ama xaalad daran. I agree with you that he was absolutely wrong. I agree with you, waan kugu raacsanahay, that he was absolutely wrong, inuu gebi ahaanba qaldanaa. You have broken our agreement. You have broken our agreement. You have broken, waxaad jebisay our agreement, heshiiskeeni. He came, waxa uu yimid, to my aid, caawinteyda. When I needed him, markii aan u baahnaa, the most, markii aan u baahi badnaa. He came to, waxa uu yimid, my aid, caawinteyda oo inuu caawiyo. When I needed him the most, markii aan ugu baahida badnaa. Do you aid, ma caawisaa the poor people, dadka masaakiinta ma caawisaa. Aid waa ficiltan, tanna waa noun. May aid caawinteyda. Do you aid, ma caawisaa the poor people, dadka masaakiinta ma caawisaa. He picked up the rifle and aimed it at a lion. He picked up, waxa uu kor u qaaday, the rifle, qorigii ayuu kor u qaaday, and aimed it, waxa uuna ku shiishay, a lion, libaax. His aim, ujeedadiisu, is to become, waa inuu noqdo, a president, madaxweyne. His aim is to become a president. Which airline, diyaaradee ama shirkadee diyaaradeed, are you traveling on, ayaad ku safraysaa. halkaas t ayaa ka maqan, cafwan.
Which airline shirkadee diyaaradeed are you traveling on ayaad ku safraysaa? Be at the airport garoonka joog 2 hours before 2 saacadood ka hor the plane leaves ka hor intaysu diyaaraddu tegin 2 saac ka hor ayaa lagaa rabaa in aad joogto garoonka intaysan diyaaraddu tegin. Be at the airport 2 hours before the plane leaves. The door was ajar. Albaabku waa u balaqnaa when I returned markii aan soo laabtay. The door was ajar when I returned. If you hear fire alarm, haddii aad maqasho gambaleelka dabka loogu talagalay ama sheegaya there is a fire, dab ayaa ka jira somewhere, meel uun. If you hear fire alarm, there is a fire somewhere. Intaas ayaan kusoo koobaynaa casharkeenii maantay. Intii ka horeysa intaynu dib iskugu soo laaban doono casharkan kiisa xiga, like, subscribe, share intaba isugu dara. aad baadna u mahadsantihiin.